السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دمير الأدون كجوكتان وايد السلام يا وحنا إذا لي هاي كسر دوادي جنر كيك مقصود كوكن إن شاء الله مركو بادي مر لبات ما أنتو حنا وضع حواشكي أمبريس كوكرنا يا أن هتكورن دي وايدي سو جلنا يا باينو وضع هدو بكرة على نقطة إن شاء الله تعالى وحواشي دي أنسكو درسنا أو بريس كانوا سميسنا بان وضع مرك إن شاء الله تعالى ساسد إلى سعونيسين وحواش اسكو دردر أي نوع يكون جرت بريز كهيلبك دجاج تحت واسكا درسدا waxaan ku darsanay malaha kule laakiin waa xawaash loogu talagalay suuga Itoobiyaanka ma ahantan way ka jugantii suuga Itoobiyaanka waxyaabo badan oo ku dari jiray oo aan hadda aan ku dareenin ba ku jira meeshaanayto marka saasad ila soconaysiin asxaabteyda qaaliga insha Allah taala wara idin kugu sheeg waxaan dhahay waxaan bariiska ku darsadana waa idin la sheer gareynaa hadda iga dhamaadeen hadda ii suurta galeen oo Allah uu ka raali noqday in saamaxday in idin soo geliyo marka waa kana waxa meeshan ku haystaa waa xawaaji duudu waa xawaaji burbur waa xabad sawda iyo xulbad aan soo kululeeyay ama waan soo saloolay sa u jeedin gaduudkeeda inuu isbedesho u jeedin way yar cadahay markaan la saloolin waa ka halkaas waxaan ku haystaa xabad sawda iyo عفوا waxaan ku haystaa xabad sawda iyo xulbad halka waxaan ku haystaa laba xabo joosa xogaan soo yar tumay maan zaid maan u jijibinay xogaa uu adag yahay mashiinkan u yeelay halka waxaan ku haystaa qarfo halka waxaan ku haystaa dhagayare halka waxaan ku haystaa filfil halka waxaan ku haystaa heel waa ay fahanteen aan filayaa marka insha Allah asxaabteyda waxaan idin dhahay waa xawaashka loogu talagalay bariiska iyo hilibka aan ku darsado wax kasta waa iskaga darsadaa laakiin doorada iyo waxaas kuma darsadin markaan doorada suuga oo kale aan ka karina waan ku darsadaa laakiin markaan dubaayo maya way fahanteen aan filayaa marka insha Allah hadda intaan labadaba intaba waan soo kululeynayaa waxaan jooska ka inta kale waa kululeynayaa kululeysle saaid uma saloolay laakiin kan waan saloolay xulbadii xabasowdada waa saloolay saasaad ila soconaysiin insha Allah macaankiisana marka idinka aad samaysatiin ama aad cuntada ku karsatiin baa iska wareysan doonaa biidnillaahi baari hadda aan kululeeyo insha Allah hadda meesha waxaan soo saaray labadii xawaash dubnin zaid kama rabi qandac waxa ka muuqdo waa xabad filfil ah حواج بربوركي iyo xawaaji dhuudhuubkii baan hadda halkaas soo saaray markasta uma jeedan saan gacanteyda ku yeelaayo qaada ma rabo calaashaan kuleel qandac yar baan ka rabaa udgoon inuu zaid uu gubto ama uu kuleysid udgoonka ka baxay xawaashka saasaad ila soconaysiin asxaabteyda zaid looma kululeeyo udgoonkiisu wuxuu ku jiraa qandac meel ka dheera uu ku jiraa marka saas ila socon halka yar qandaco اوكي واوجدين وحير عرفوا معان باك سو بخايا marka insha Allah ta'ala waa ka dejinaya hadda in Ilaahi baari waa ka dejinaya hadkii aan soo kululeeyay waa kaasa si qaboobo haddana saddexdaan baan soo kululeynaa waa filfishi iyo dhagayarihi iyo heelkii hadda waxaan soo saaray dhagayarihii filfishi iyo heelkii marka isaga xataa zaid uma kululeynayo asxaabteyda xoogaha qandac baan ka rabaa isagana sidoo kale marka insha Allah intaas qofkii isku darsado cunto ku kariyo maxaa u maleysay xataa basal isaga bas dad saliid kula shiishido bariiska ku karsatadaan ku dhahay xagga hore waayaan ku dhahay xagga hore reer tabalna waa in loo daneeyo Soomaaliya adduunka dadna waa koreyaan dadna waa hooseeyaan nin walba wax qeyr qabo xalaal Allah siiye laakiin dadka tabarta leh hataa in loo daneeyo qofkan hataa supermarket aan xawaash ka doonan karin baa jira laakiin kan kota shinada iska soo aruurisa dadka Kenya joogan ka hadlaaya dadka dibadaha jooga iyaga maqan ama dadka Afrikada kala jooga Soomaaliya oo kale sida dadka jooga in Kenya kala marka jood kota shinada iska soo xabsanay 300 shin oo kale hal mara ku shubay waa kulleene mashiinka ku rogay bila iska isticmaalaysa marka insha Allah ta'ala iyadoo malayga iyo digaagta lagu karinayo insha Allah hadaan noolahay waa soo gelinaya oo qudaar aan iskayga aan u qalajiya ah insha Allah hadaan noolahay waa taas hadaan dhimanin biidnillaahi baari hadda waa ka damiyay isagana sidoo kale kan had meeshan ku soo gedisanaya waa kaasa
hal meel leen kusoo gidiyey haddana waxaan ku shubanaynaa qarfiyo ileen kan hore usoo kulleeyay jooskana maba kulleynayaan idin dhahay soo ma okay hadda qarfiyaan kusoo shuba u jeediin marka wax walba waxaan idin tusayaa saad ii fahantaan ooda u dhihin qofku wuxuu isku dardaray muxuu noo tusi waayay inuu qof qaarkiis dhahaad isku dhici karto dadka isku dabeecad ma aha dad baa inay dhibsadaanoo waxaan waxba kamaba aqaani ama waxba oogama jeediye maxaa laga wadaa camal inay dhahaan baa dhici karto marka insha allahu tacaala biidnillaahi baari saasaa marka mid walba idiin tusayaa kan hadda waan qandacinaa isagana sidoo kale waa isku gedinayaa marka waa soo shiidaya insha allah okay asxaabteyda waa kaasa qarfiina saasan usoo kulleeyay hadda marka mashiinkan ku shiidaa waa kana waa mashiinka yararkan ku shiitaa qaarna waxaan ku shiitaa waxa xawaashka qaarna waxaan ku shiitaa sida heelka iyo qaxwada oo kale marka hadda kan baan ku shiidaya insha allahu tacaala waxa dhan hal meel baan isugu geynaa laakiin waa xoogaan u shiidaya hal meel baan isugu geynaa saasad iila soconaysiin insha allah okay asxaabteyda qaybta ugu horeysa saasaan usoo shiida waa ujeedii maasha allah xoogaa qiq baa ka baxay waa aan qandiciyey marka qaybta labaadna halkaasaan kusoo shubay qarfiyi kuma jira hadda wixii kale waa qarfaha gooni baan u shiidayaa maadaama uu ka adag yahay alaabta kale marka saasaad iila soconaysiin okay waa kaasaa qaybta labaadna saa ujeediin waan soo shiiday heelkii baan kusoo daraya qarfiyi baan kusoo darayaa saasaad iila soconaysiin marka okay asxaabteyda qarfiyina saasaan ugu soo daray waa ujeediin marka maasha allah xawaashkay aan idin sheegayo oo bariiskan u karsadaa aan idin dhahayo aan ku karsadaa oon markaan karinayo aan idin tusi jiray waa kaasaa quruxdaasuu kusoo baxay maasha allah tabaarakallah marka waa dhammaystirantaan ku dheh xawaashkan wax ka maqan ma laha kuwa yalowga ah oo digaagta lagu kariyana iyo malaayiga insha allah biidnillaahi baari horeyna waa idinkuugu sheegay mar labaadna waa idinku soo celinaya asxaabteyda waxaan idinkuugu soo celcelinaya jeceelaan idiin qabo waan idiin soo gelinaya biidnillaahi baari wax kasta inaad gurigaaga dhexdiisa ooga maarantid baan idiin rajaynayaa hadda ha ii qaboobo weelan daboolaan ku gidisanayaa kan saaran u isticmaala hadda bil waa i haynaya intii hadda idin dhahaye waan idiin soo gelinaya wuu ii yaalay hadda markuu dhammaaday buu ilaahay ii saamixiyey ama ii ogolaaday inaan idiin soo geliyo saasaad iila soconaysiin waa kaasaa saas iyo waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada jararkayga maqsuud kukan insha allah meel walba adduunka joogtaan waan idin salaamayaa mar koobaad iyo mar labaad meeshiinaad joogtiin allah idinku ammaansado nabad iyo caafimaad ku waara baan idin leeyahay idinkii awlaadiina iyo waalidiintiinaba marka insha allahu tacaala saasaad iila soconaysiin welcome baan idin leeyahay gacmo furan baan idinku soo dhaweynayaa dadka sabiska ku jira waa kaasaa waa ila joogtiin waa ku mahadsantiin daawashadiina iyo mahadcelintiina iyo dhiirigelinta dhiirigelinaysiin iyo ducada ii duceynaysiin koon ku jirin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaad jararkayga sabiska taabo gambaleelka ku dhufo soo aan waxaan ani la sheer garay idinkugu soo dhacaan aad u heshiin waxaad ka heshiin iigu soo duceeya waxaad ka heli weysiin hadda dhib malaha kulley nin walba aqoontiisa waa gooni wuxuu alla baray wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu